tobabarkan maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ayaa ku saabsanaa wacyigelinta haweenka ee safmarka faafa ee COVID-19 kulanka waxaa soo agaasimay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaana daafurkiisa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe iyo maamulka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay didaal ugu jiraan sidii haweenka looga caawin lahaa ka hortagga caabuqa COVID-19 marka waxaan dhinac wacyigelinta ogaado mudane gudoomiye waxaan u maleynayaa dadka meesha fadhiya wacyigelinta hadda ka qayb qaadan ururka haweenka anaga waxay noo yihiin gudoomiye waaxidii noo yihiin gudoomiye laamiyada noo yihiin waa mas'uuliyadda koowaad oo deegaankan Cadaado shaqada ugu hooseeya qabta ama konsolka degmada qabta waa ana meelis waxaan rabnaa in mataqaana dadkan ay hore ugu socdaan waxa qabadyadooda mataqaana sida saxan aasaaskana dadka maanta aan ogsoonahay annaga dhanba waxaan ku tirsanahay haweenkan ku tirsanahay ayaga shaqeeya gudoomiyaha ururka haweenka degmada Sahra Axmed Cadaawe ayaa dhankeeda ka mid ahayd dadka hadalka ka soo jeediyay inta kulanka uu socday waxaan rajaynaynaa insha Allah 2,000 oo qof oo soo qornay iyo inteena kalaba inaan ka faa'iideysan doono oo aad barnaamijkan isku gaarsiin doono wax qabadkiisana aan fahmi doono waxa la yiri nadaafadu waa imaamka barkiis imaamkuna waa diinta barkeed kale waa nadaafadii cudurkaas waxa lagu hortagi karaa waa nadaafada kuwa ka faa'iideysta Allah naga dhigo Batuula shaqo wanaagsan oo garab taagana waan kula shaqeynaa insha Allah waftiga ee balaaran oo la socdo gudoomiyaheena qarankana inta kale aan salaamaya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa sheegtay in Cadaado ay ka mid tahay degmooyinka ku guuleystay in lagu qabto mashruucan looga hadlayo wacyigelinta haweenka ee safmarka faafa ee caabuqa coronavirus-ka kadib dadaal badan oo la suubiyay iyo xiriirin badan oo la suubiyay in ay ku guuleystaan haweenka degmada Cadaado ay ku guuleystaan inay mashruuca kan ay fuliyaan mashruucan wuxuu ku saabsan yahay wacyigelinta cudurka Ilaahay hanugu shartire coronavirus oo aan muddo dheer u qaylinaynay dadka masaakiinta ah barakacayaasha ah saboolka ah ee aan awoodi karin xataa waxa isku nadiifiyaan inay gataan caruurtooda iyo maaragtay qoyska waxay ku nadiifiyaan oo gacmahooda ay ku dhaqaan inay dhaqaale aysan u haysanin iyo waxyaalaha la xirxirto oo looga hortago cudurka waxaasoo dhan inaysan awoodi karaynin waxay degmada Cadaado ku guuleysatay inay ka daboosho baahida ilaa 2,000 oo qofood in loo keenay wixii ay sanka ku xiran lahaayeen wixii ay gacmaha gashan lahaayeen iyo qalabka nadaafadda oo gacmaha lagu nadiifiyo Mubaarak Maxamuud Shaqaaden TV-ga caalamiga Universal Cadaado